wardegdega daawadayaal waxaa hadda baaq nabadeed u diray mid ka mid ah culimada waaweyn ee reer Somaliland Sheekh Maxamed Cumar Dirir ayaa waxa uu baaq nabadeed oo degdega u diray labada beelood ee walaalaha ee Samaroon iyo Ciise oo dhawaan ay dagaal lagu hobtay ku dhaxmaray duleedka Sayda ayaa waxa uu ugu baaqay sida tan waxaan diri lahaa baaq nabadeed oo ku saabsan dagaalada galbeedka ka socda marka waxaan odhan lahaa cidda abaabusha iyo cidda ku jirtaba naftiina u eexda qofka muslimka ah wuxuu u eexda waxa ugu mudan naftiisa maxaad ku janno galaysaa adigu maxaad ku naar galaysaa isagoon dawlad eegin isagoon tol eegin waayo qabriga keligii un baa lagu xisaabinayaa reer hebelna la xisaabin maayo cid kale u taageero u yahayna lala xisaabin maayo daliilada ku soo arooray digniinta loo diray qofka ka qayb qaadanaya dilka muslimkana aad bay u culusi ayadaha suuratu nisaa waad akhriyi karaysa ay ilaahay ciqaabka badan u yabaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu tilmaamay laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman xadiidkii bukhaari ibnu cumar uu warinayay qofka muslimka ahi diintiisa waasac buu kaga sugan yahay iyo nafis iyo dembi la-aan iyo godob la-aan haddaanu dhiig muslim faraha la gelin markaasuu godob yeelanayaa meel waliba cidhiidhi ku noqonaysa marka dambe la heshiiyana wuu ka murugoonayaa kii aada u dagaalamay ama aada u ficiltabay waruuxa maxaa kuu geeyey buu odhanayaa aakhirana wuu ka warramay nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu tilmaamay maalinta qiyaamaha marka la ysu yimaado waxa u horeeya la xisaabinayaa waa dhiigga xuquuqda dadka muslimiinta dhexdooda marka qofkii waxaa la leeyahay maxaad ku dishay qaar baa waxay odhanayaan sidii hebel darajo u heli lahaa siduu awood u heli lahaa kaasaa ilaahay uu ku ciqaabaya qofka ah nebigu calayhi salaatu wassalaam waxa uu tilmaamay dembi walba inuu ilaahay dadka ka dhaafo waa suuragal gaalnimada iyo dilka mooyaane gaalnimadana ilaahay